العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال سائل نويدي أيها وحي كسر سنيد ويا حي وسؤال شاس وحوي ننكو شخصه ننكو هديه فره وينتيسا مركا وكفره دلاغ رجعي أنبوحين وهل دلغا يكفري أما الله بدلغو كفري ciidadeedii marka way dhamaatay asagoo aan soo ceshan nikaaxa dambe uu ku soo ceshanayo haduu markaa guursado oo nikaaxa dambe uu guursado nikaaxa dambe uu ku soo ceshanayo maxaa dalqadihi muxuu ku qabahayaa ma dalqadihi hore intii ka dhimalay miyuu ku qabahayaa bas waxa weeye nikaaxaasi dalqadihi oo dhan buu soo celinaya masaladaas marka hadii la eego culimadu markii ay ka hadleen fuqahadu waxa weeye sideeda waxa la yiraahdaa sida waliba saa'ilku asagu uu arinta u weydiinahay waxay ahayd ninkii naagtii uu furay cidadii way dhamaatay ka bacdi buu marka yaani waxa weeye guur la iimaanahay guurka hadii marka qofka saa'ilka wax furay oo naagta furay asaga iyo naagta uu furay oo dalaaqa radiga uu ku furay oo cidadoodu ay dhamaatay hadii labadooda gudahooda aan nin kale soo dhaxgelin oo nin kale uu soo guursan haweentaas nikaaxa dambe la imaanayo inay ugu soo noqonayso dalqadihi intii ka dhimanayd haday mid tahay haday laba tahay waa mas'ala ijmaac oo la isku khilaafsanay hadii marka laga dhigo nin baa soo dhaxmaray oo waxa weeye masalan asagu hal dalqo ku furay ama laba dalqo ku furay ciidadeedii marka way dhamaatay markay dhamaatay nin kala guursaday ninkii kala soo furay marka ka bacdi uu guursaday taada waxa weeye sida asxaabta rag waaweena ay qabaan oo islaamka muudamkiisu ay qabaan ayaduna midaan kale ku xukumtahay waaka awgu mas'aladaas waxa la yiraahdaa waxa khilaaf ka keenay Abu Hanifa laakiin sida hadda aan soo qaadan doono ama Umar ha noqoto ama rakalo ama Ali ibn Abi Talib baranka waa asxaabta kamid ah ajilla ama taabiciinta ama salafki ayadana waa sida oo kale oo waxa weeye nikaaxa dambe waxba kale ma soo celinayo waxa uu soo noqonaysaa haweentu wixii u dhimanaa hadii laba dalqa u dhimanay oo hal dalqa ku furay iyo hadii mid kale u dhimanay oo laba dalqa ku furay wax kale uu soo noqon maayo waayahay sidaas marka way soo qaadan subaxda manhajka hadii la eego raga arinta laftigeeda hadaba kutubihiisa ku sheega waxa kamid ah Ibn Mundir waa soo kutubahan ijmaaca iyo khilaafaadka iyo waxyaalaha kutuba ku saabsan alifay raga waliba waxa kamid ah Umar markuu arinta laftigeeda jawaabahay waxay soo qaadaan خلافتي او افعالته كميد oo xilliga khilaaf muujisay inaysan jirin rag kale wax laga soo gurguuriyaa marar dambe way iska jirjiraan oo laftigoodu aqwaal kala bedel laga soo guuriyo ibn al-Mundhir markuu masalada ka hadlayay kitaabkiisa iqnaa la yiraahdo wuxuu yiri wa idha talaqa ar-rajulu imra'atahu tadliqatan hadii ninku naagtiisa hal dalqa uu ku furo aw tadliqatayn ama laba dalqa uu ku furo wa tazawwajat zawjan min ay guursato thumma raja'at ila zawjiha al-awwal ninkeedii hore ay u noqoto كانت عنده أكتس وحي كو أهانيسا على ما بقي من الطلاق انتي فرينكا وقدمنا فرينكا انتي كهاني كاس أي أكتس كو أهانيسا مركز سيدا آثار باكو سوى روسي وحافظك بيهاق اللي يرهدو كتاب كيسا معرفة السنة والآثار اللي يرهدو كتابك خلعك يدلاق باب ما يهدم الزوج من الطلاق زوجك وحا أدمنها يو فرينكا مركو أرنتاس وكوربها يمحويري كتاب كيساوي كله قال الشافعي يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين وغير إمام الشافعي نينك مركي صدح دلقوض وغفري كبعدي هوانت عصيبة انتو قرسلي دلقلها صور المركة ودمينها هي وصدح بقى الغفري نين بقى قرسلي هذا يقول كدنبو نينكي وراء قرسلها يوحوي طلاق بوحة أيه كسول نقونيسا ولا يهدم الواحدة والثنتين قور دنبو حتى ينادا هل دلقو يلا ودلقو من لبرنهاي سيدي بيو تاغنت sababta marka sida loo yiri waa maxay culimadu sida ugu jawaabaya una sheegaya xataa raga qaba waxa weeye guurka dambe oo ayadoo naagta hal dalqa ugu furo ama laba dalqe guurkaasi faa'iido ma keenina xilli ah illa ninka hore furay hadayba u banaanay inuu guursado uma baahnayn qof soo dhaxmara waa guurkaani marka wuxuu soo kordhiya laba arko marka sida daraadeed waxa weeye naagtaan marka way u banaanayd mar walba inuu marka guursado laakiin markii saddex lagu furo guurkaan wuxuu keenay waxa weeye uma banaanayn guurkaan dama marka waxa weeye banaanaan sharcaantii oo ka dhalatay saddex li dalqo ayuu meesha ka saaray
saasuu marka wuxuu u keenahayay dalqadihii inay soo wada noqdaan. amaa laakiin guurkaa naagta la guursaday dalaaq rajciga gadaashiisi bacdama ay u banaanayd wax uu soo kordhinahaya marka laba arag sibay ugu noqonaysa. qaala imaamu shaafici wuxuu yidhi buu yidhi waqulnaa haada anagu warkaan waa niri buu yidhi can cumara cumar xaggiisaan ka niri cumarkii ibn lkhataabi ah masaga laftigaa sidaa qabay wa cadadin tira xaggoodi oo min kibaari asxaabi rasuulillah ilaahay rasuulkiisa asxaabtiisa ku waaweynaa ka mid ah. ko markaa kabacdi bayhaqi sanadkiisa wuxuu ku wariyey asagoo weliba sanadka xataa dhexdiisa shaafici uu ku jiro zuhri wuxuu ka wariyey zuhrina wuxuu ka warinayaa 3 nin oo kamid ah taabiciintii nin la yiraahdo xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf ubaydullaahi ibn cabdillahi ibn cusba ka hore saxaabiga cabdiraxmaan la oran jiray sulaymaan ibn yasaar 3 nin oo taabiciinta kamid ah wuxuu ka wariyey zuhri waxaana sanadkiisa xadiidka ku warinaya bayhaqi annahum samicuu inay maqleen abaa hurayra yaquulu asagoo leh sa'altu waxaan su-aalay cumar bna alkhadaab cumar ibnu khadaab baan waxaan weydiiyey buu yidhi can rajulin min ahli lbaxrayn nin ahlu baxrayn ka mid ah. baxrayn waxaa la oran jiray oo macruuf ay ku ahayd loo yaqaano magaalo udhaxaysa magaalada basre la yidhaho ciraaq ku taala iyo magaalada cumaan la yidhaho magaalo udhaxaysa hadda wadan dhan oo baxrayn loo yaqaano baa jira laakiin baxraynta hadda la sheegaya saasay ahayd waa magaalo magaceed bay ahayd laakiin midaan hadda dawladan lagu magacaaba waa magaalo jaziira ku taalla weye laftigeeda wadanka oo dhan ba jaziiradaas magaceeda wadanka oo dhan ba lagu magacaabay. waayahay magacu marka meeshuu rabaa uga yimaado rajul oo ahlu baxrayn kamid a talaqa imra'atahu marka cumar baan waxaan weydiiyey buu yidhi nin ahlu baxrayn kamid a oo naagtiisa furay talaqa imra'atahu tadliiqatan hal dalqa ku furay aw tadliiqatayn ama 2 dalqa ku furay uma inqadat ciddatuhaa ciddadeedii ay go'day fatadawajuhaa rajulun gayruhu nin aan asaga ahayn uu guursaday uma dallaqahaa ninkii dambe uu furay aw maata canhaa amaba uu ka dhintay uma tadawajaha uu guursaday zawjuha alawal ninkeedii horreeyay uu dib ugu noqday calaa kam hiya cindahu agtiisa intee dalqay ku ahaanaysa qaala hiya cindahu calaa maa baqiya agtiisa waxay ku ahaanaysaa intay ka hartay dalqadii hore hadda nin baana soo dhex maray moogta waa jawaabkii cumar. bayhaqi markaa kabacdi wuxuu sheegay arrinta noocaasa in laga wariyay cali bnu abi aalib ubay ibnu kacb imraan ibnu xusein zayd ibnu caadi ibnu jabal cabdillaahi ibnu camar ibnu caas iyo in badan oo salafka ka mid ah. sidoo kale waxaa axaadiistan sanadkooda ku wariyey xaafidka cabdurazaaq la yidhaahdo kitaabkiisa musanafka ah kitaabu talaaq baabka annikaaxu jadiidun wadalaaqu jadiid oo laftiisu casaar kalena uu kusoo qaadayo xadiidkanoo kaleo abu hurayre ka wariyey iyadoo abu hurayra cumar uu ka warinahayo oo weliba dhow sanad buu ku warinahayo cabdurazaaq. sidoo kale cabdurazaaq wuxuu sanadkiisa cali bnu abi daalib uu ka wariyey inuu yidhi hiya calaa maa baqiya min atalaaq macnaha inay ahaanaysa naagta noocaas oo kale ah intii furinkii ka dhibanayd. saasoo kale haddana sanadkiisii arrintaasoo kale ubay ibnu kacab buu ka wariyey imraan ibnu xusein buu ka wariyey. wuxuu kaloo haddana sanadkiisa uu ka wariyey rajul oo nabiga asxaabtiisa ka mid ah ana anabiya qadaa fiiha nabigu inuu arrintan ku xukumay annahaa calaa maa baqiya min atalaaq naagtaasi inay ahaanayso intii furiinka ka dhimanayd ayadoo marka nabiga laftigiisa laga waraya laakiin culammadu waxay aasaartaan u hormariyaan oo cuskadaa xadiidkan xagga nabiga marka loo tiirinayo xoogaa waxaa ku jira ducfiyo nin la yidhaahdo cusmaan ibnu muqsam la yidhaahdo inkastoo raggii aimadaha uu kamid aha ay daciifiyeen baa ku jira laakiin amaa aahaartaani iyadoo way ka ansaxda asxaabtaa. marka rag kale way jiraan oo iyagu nikaaxun jadiidun iyo dalaaqun jadiidun sidaa yidhaahda laakiin masaladaa haddii la eego midda horena waa ijmaac midaana waa sida mucdamul culama ay qabaan ama asxaabta badankooduba mar walba waxay kusoo noqonaysaa waxa weeye waa intii u dhimanay. ko wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.